بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دمان أصحابتي ذا كحران شبكة solarportal.com solarportal فيسبوك لايف iyo hadduu idin dhaafo mar walba waxaanu ku jirnaa dhanka iyo YouTube oo aad naga daawan kartaan barnaamijkii aan xayeysiinay caawa martida inoogu tahay fanaanad weyn isla markaana ah business women ganacsato ah oo ku sugan caasimadda Somaliland magaalada Hargeysa ayaanu waraysi ka samaynaa marka barnaamijkan bilaabin ugu horreyn waxaan ku leeyahay hibaaq gabaad soo dhawow ku soo dhawow Solarportal thank you walaalaad baa mahadsan tahay Cabdi Naasir waan dhawahay mahadsanid walaal ma sha Allah dadkaan la soconin waxaan ka codsanayaa barnaamijka inay sii qaybiyaan ama sii share gareeyaan say warkaan waxaanu ka hadlayno barnaamijkan wuxuu bilowdaan filayaa 10 maalmood ka hor inaan ka aragnay baraha bulshada hibaaq oo aad loo dhibaateeyay oo sanadkii hore bartamihiisa ilaa iyo bishan Maarso inaan ku jirno bilowgeedii Apple ID-geedii telefoonkeedii wax walba iyada ay sameeyso meesha laga arkay marka ma doonayo inaan ka hadlo marar badan ayaan ka hadlay live uga hadlay soo qoray sida awgeed gabadha waan ballaminay isla markaana waxyaabaha ay sheeganayso iyada ayaan u jawaabi doonto ugu horeyn su'aasheedu waxay tahay hibaaqay goormay kugu bilaabatay dhibaatadan iPhone ka soo gaaray Cabdi Naasir aad baan kuugu mahad celinaya horta walaal markasta in badan baad garab istaagtay oo kale Soomaalidu maqraati ka tahay aad baan marka koowaad adiga kuugu mahad celinaya walaalo hadaan guda galo dhibaatadaas xilligay igu bilaabantay inkastaanan taariikhda si fiican u xusi karin laakiin adigu bishii shanaad 2020gii ayay ahayd baan filayay dhamaadkeedii bishii sanadkii shanaad sanadkii tagay bishii May inay ahayd amba lixaad adigu shanaad un bay ahayd saan ila tahay inkastaan maalinta meel ku qoran oo taariikhan huwa ay aanay ahayn xilligaas ay kugu bilaabatay marka laga bilaabo sanadkii hore bartamihiisa waxaad ii sheegtay inuu shaki badan kaa galay in akhbaarada ku qaas ah lala wadaagay shakhsiyada dad kale marka shaki ugu horey goormaa dareentay waxyaabaha adiga ku qaaska ah ee meelaha qaarkood aad ku aragtay ama laga daba keen goormo ah waqtigaas diyaar xasuustay walaal horta waxaani marba maxay ahayd qofkani dadkani talaabay qaadayeen oo waxay ahayd markii ugu horeysay waxa la igu bilaabay WhatsApp la iga hanjabi jiray uma joojin jirin laakiin markaan arkay in wixii taleefankayga ku jiray aniga private-ka ahaa in maxay ahayd dad gacanta ku hayaan waxay ahayd adigu waqtigaan ku sheegay markii laga joogo ilaa muddo bil iyo bar meelahaas ay xilligaas ay marka goormeed markii ku horeysay aad u tagtid shirkadda Smartech ee ku taala magaalada Hargeysa sababta aad u booqatana maxay ahayd Smartech markii ugu horeysay shirkadda Smartech wala waxaan u tagay 2017 waxaan u tagay telefoon baa la hagaajinayay oo la display wax la igu xiray waa iga xumaaday oo waxbay iyaga kaga xirmay saas baa markaa telefoonkan iskaga dhaafay markaa 2017 bay ahayd waana muddadii inta iPhone isticmaalayeen oo shirkadda kaliya Hargeysa aan kala macaamilay markasta aan u tagi jiray gartay marka goormeed markii kugu horeysay oo aad xasuusatid Apple ID madiga gacantaada ku samaystay mise qof baa ku sameeyay mise Smartech baa laga sameeyay markii kugu horeysay aad xasuusatid markii ugu horeysay waxay ahayd 16ka dhamaadkiisii waa markii ugu horeysay aan iPhone isticmaalay wiil baa ii sameeyay marka wuxuu igu yiri intuu ii sameeyay ugu yiri password-ka bedel password-kaas ka bedeshay si caadi ah ku shaqeeyay si caadi inaan baa ii sameeyay inaan baa ii sameeyay waa gartay xilligan haddii aad xasuustid imise jeer ayaad Smartech aad u tagtay oo let's say aad ugu tagtay in Apple ID lagu sameeyo ama telefoonka gacanta uu ka baxay markaa والله هدان ku yiraahdo intaas oo jeer baan telefoon inaan hagaajisto ama wax la igu qabto ama wax uga soo iibsado ugu tagay been baan ku sheegay tira ma laha uma tirin karo laakiin Apple ID inay ii sameeyaan intan ugu tagay waxa weeyaan hal mar baad u tagtay taas haddaan soo galay labaad aan samaystaba waa kii Apple ID kii hore inaan baa ku sameeyay kan waa kii labaad aan samaystay 16 ilaa waqtigaas aan isticmaalayay wiil baa ii sameeyay laakiin password-ka uu bedelo bigu yiri intuu ii sameeyay password-kan bedeshay kan wuxuu kii labaad buu ahaa marka meeshaad ka samaysay dawadayaasha iminka qadka ku jira waxaan u sheegayaa
barnaamijkan ma ahayn keliya in maaragtay smart tech lagu eedayo wax waan la xiriirnay saa la socotaan dhowr maalmood ka hor inagoo barnaamij diyaarinayna hibaaq baa ila soo xiriirtay waxay igu tiri cabdinaasir wadahadal baa noo socda iyaga iyo rag kaloo asxaabaana reer hargeysa marka waxay tiri hibaaq bal arrintan dad baa dhexgelaya si loo xaliyo bal yara sug hibaaq waxa keliya doonaysa waxay ahayd in baaritaan la sameeyo waxyaabo badan oo aan soo baarnay oo dhanka teknolojiyada waan u gudbinay waan u sheegnay meesha dhibaatada ay ka timid waxay doonaysay keliya in acknowledgement la sameeyo la ogaado dhibaatada la gaarsiiyey hibaaq isla markaana raaligelin laga siiyo mar dambana qof kale aanu ku dhicin ama gabar ama wiil hargeysa ku nool meel kale aanu ku dhicin marka laakiin arrintii waxay noqotay in ay waqti siiyaan markii dambena ay yidhaahdaan waxba kama qaban karno iyadoo la og yahay meesha dhibaatada ay ka bilaabatay waxaan kaloo aaminsanahay dadka iskale in aanu shaqo ku lahayn waayo shirkadda smartech waa shirkad weyn oo somaliland soomaaliya puntland meel walba ka shaqaysa uma furna keliya in qof abalayd loogu sameeyo ama lagu dhibaatay marka taas waan ka afayfanaynaa laakiin waxaan doonaya inaan weydiiyo hibaaq markii kugu horeysay adiga wax adiga kuu qaas ah baraha bulshada aad ku aragtid oo shaki uu ku gala gormaaya hibaaq maxaadna aragtay cabdinaasir aad baa u mahadsan tahay walaalo inta aniga iyo asxaabteedii dadka igu xeeran ama ehelkayga ah loo dirayay ayaa ka badan inta baraha bulshada lasoo dhigay baraha bulshada waxay ahayd maalintii dhoweyd baa ugu horeysay ee aan maxay ahaday aan soo fadhiistay aan hadlayay laakiin 10 bilood waxaa laygu hayay ehelkayga asxaabteeda qof kastoo aan la hadlo dadka igu xeeran oo dhan ayaa lala wadaagayay waxyaabahay aniga taleefankayga ku jiray oo loo kala qaybinay marba qayb loo dirayay suu marba qof ii yiraahdo waxaad leedahay naloo soo diray oo yacni maskaxdayda ay isku bedesho qofkan uu cadaadis ii saaro ana asaga uu maxay hayday u hoos tago maxaa kamid oo sheegi kartaa hibaaq waxyaabaha kamid aniga waxaan arkay video baan arkay laakiin videoga kolley anigoo shakhsiyan wax xun maanan arkin video dadku emotion bay leeyihiin qofku dee raggu wuu ilmeeya dumarku way ilmeeyaan wax walba qabsada fadeexad ceebna ma ahan maxaa kugu darnaa oo aad sheegi karta waxaadan sheegi karin dee annagu ka hadli mayno maxaad sheegi kartaa oo kugu darnaa oo aad aragtay oo aad la yaabtay oo baraha bulshada lasoo dhigay ama lala qaybsaday dadkii asxaabta iyo qaraabada ahaa walaal horta maxay ahayd wax anigu san hore u sheegay waa runtaayoo dadku waa binaadan qof waliba uu ooyaa waanu qoslaa aniguna waxaan ahay dadka markay qof isqabsadaan amba laga gardaran yahay amba khalad laga galo amba ay caadoodaanba dadka oohinta ku nafisa ee ooya dhibna uma arko maxay ahaydey intaa waxaan haynoo bulshada lala wadaagayna weli maanan arkin laakiin waxaan kuu sheegayaa unka afifanay qof kasta horta wax u bareefada wuu leeyahay rag iyo dumar taleefonka halkaaga adoo joogaad isku duubaysaa isku sawiraysaa waxaad adigu raalli ka ahayn ama ha asturnaado ama yuu asturnaani waxaad adigu raalli ka ahayn in dibadda lagaa keeno dibadda lagaa keeno way ku xanuunjinaysaa aad iyo aad laakiin waxaan videogaas ahayn oo baraha bulshada lasoo dhigay ma jirin laakiin mana jiraan waan ka afeefanay dad baa isku mashquuliyey oo yiri gabadha horta siday sheegtay hibaaq kole iyadaaba fadhisa qofka hal waraaq wax ay ku qoran yihiin halkan ku qoran yihiin iyaday u qaas yihiin haddii maaragtay in lala qaybsado waa qalad laakiin dadkii ku hanka weynaa oo lahaa hibaaq oo qaawan sawiradeeda meesha ku jiray taas waxba kama jiraan mana jiraan dadka social media soo geliyeyna gabar emotionkeeda way aad bay uga liitaan u malayn maayo hibaaqan inaa wax ka dhibayso hibaaqan baan ka soconayna waxaan doon inaan ku weydiiyo ma jira shaksi ama shaksiyo kula soo xiriiray telefoon localka local waxaan ka wadaa telefoonka Soomaaliya laga isticmaalo kala soo xiriiray isla markaana ay la socdeen arrimahaaga haddii ay jirto goormay bilaabatay markii ugu horeysay qof uu kula soo xiriiro adiga qaasatan aan ahayn dadka kale adiga kula soo xiriiro goormay ahayd waqtigaas walaal waa waqtigan kuu sheegay aan kuri ilaa bishii 5aad bay ahayd laakiin bishii 5aad xilliga ka ahayd ma garanayo waqtigaas ilaa bishii 5aad uu dhamaadkeedii bay ramadaantii wixii ka dambeeyay ayuu ila soo hadlay wuxuu igala hadlayna WhatsApp bay ahayd wadanka laga leeyahay hal lambarna mu ahayna dhowr nambar buu ahaa oo marba mid uu soo bedelanayo nambarada waqtigan ku cusub marka nambaradu way kala dambeeyaan nambaradii horena waa la garanaya kulley dadka Soomaaliland ku nool way garanayaan kuwan dambana way garanayaan wadan kasta inuu saa yahay baan malaynayaa marka wadamada maxaa dhahaa nambaradan dambe ayuu ahay nambarada laygala soo xiriiray ama layga soo hanjabay ama wax layga soo diray laygu lahaa waxyaabahan ka haynaan taleefanka kala baxnay qofka ma isleedahay inuu ku yaqaanay personally adiga shakhsiyan inuu ku yaqaanay wallahi horta cabdinaasir tuhumku waa dembi laakiin marka
eego kolley qof walba caqli buu leeyahay waxbaan qiyaasi karaan qiyaaso qofkani waa qof si fiican ii garanaya hal qof inuu yahayna kolley anigu ma aaminsani waxyaabaan anigu arkay dartood ma aaminsani hal qof inuu yahay laakiin inuu ku jiro qof aniga si fiican ii garanaya halkan galay iyo halkan kasoo kacayo waxaan qabtay iyo wax walba taaka ila socda ayaa kolley ku jira boos kastaba ha ka qaatee waa gartay hibaaq waxaa jirta haddii maaragtay dhan kale aan ka eegno waxaa laga yaabaa dad xiriir ka dhexeeyey inay kala tagaan waxaa laga yaabaa dee qof caan oo haddana business woman baa tahay waxaa laga yaabaa nin dusha kaa eeganayay oo ku jeclaan jiray ama ku jecel ina sida keliya markuu ku heli kari waayey haddii aan idhaahdo sidaa markaa uu ku biiqsado ma dhici kartaa mise waxaas leedahay qofkaan ma ahayn qof xataa dhankaas si wanaagsan ila hadlo mar walba uu biiqsanayo oo ay dhibaataynaya cabdinaasiro walaalo horta aad baa mahadsan tahay haddaan xaggaas ka eego kolley qof kasta uu isgaranaya isagu dabeecadiisa dadka inta igu xeerna si wanaagsan bay ii garanayaan anigu ma yihi dadka xidhiidhada badan ama xidhiidhadu iskaga khaldamaana is yidhaahda imise qof aad la sheegaystay intaasoo qof biluu qofkaa yahay markaas taas kolley shuur wey ma waan hubaa macquul ma aha qofka noocaas waxaa sameynayana kolley qof aan la soo sheekaysan kara maaha waa gartay waxaa laga yaabaa obsessive inuu yahay qof maaragtay kugu mashquulay ka bilaa camala waayo waqtiguu igeliyey horta bulshada wallahi haddaan siraado maanta suu ii dhibaateeyey kow uga bilow oo u dhamee ma dhammayn karo 2 cisho ma dhammayn karo oo 10 bilood baan dhibaatadan xamilayay qofkani camal kale aanu lahayn waxa dhacaysay xilliga dadku seexdaan aan maqsinkayga keligay joogo ama qolkayga qof suu yaqaano aan joogo ayuu dadku seexdaan 2 habeenimo wixii ka dambeeya ayuu ila soo hadlayay ama wax ii soo dirayay ama uu maxay ahayd cabsi gelinayay si aan markasta u noqdo qof saga u hoggaansan oo aan u boqo ama uu ii baqdin geliyo marka qofkani waa qof waqti badan iyo juhdi badan i geliyay waayo asxaabtayda ehelkayga meel kastoo galo qofka soo raadiyay waqtiga geliya kolley camal intaa dhaama ayaanu haynin ilaahayna ha siiyaan leeyahay absolutely dawadayaasha waxaan kaloon aan u sheegaynaa in telesom markii arrintan ay ka war heleen ay u xil saareen dadkii madaxda ka ahaa telesom oo ay yidhaahdeen hadda xilligan in ay hibaaq la kulmayaan islamarkaana ay baaritaan samaynayaan islamarkaana CID-da Somaliland iyo xeeryaalaha ay u gudbinayaan wixii dacwad ah oo gabadhan lagu dhibaatay gabadha kaliya ma ahan haddii gabadhan la dhibaatay berrina qof kale waa la dhibaateyn karaa telefisonna waxay noo xaqiijiyeen inaanu siyaasadooda ahayn in qof oo macaamil ah lagu dhibaateeyo marka iyaday ka warsugayaan tan kale wax walboo jira hibaaq waxaan xaqiijinayaa oo ay ii sheegtay in wax maaragtay lacag ah ama magdhow ah aanan ka doonin cidna ay doonayso in arrintan baaritaan sharciga lagu sameeyo islamarkaana qofkii dembigan galay sharci aad u adag yahay iyo telecommunication wax walba la marsiiyo marka waxaan rabaa dhowr jeer ayaa lagula soo xiriiray waxaad bedeshay markii dambe Apple ID-ga laakiin isla telefoonkii aad isticmaalaysay maxaa ku dhacay xilliga markii aad bedeshay telefoonka maadan bedelin waxaad bedeshay Apple ID-ga oo istiri waad ka nabadgelaysaa marka arrintii ma istaagtay mase way sii socotay hibaaq cabdinaasir waxa dhacday maan horta waxaan aqoon fiican maanu lahayn dadkan la wadaagay arrintaas qof walba waxaan ku raada arrinkaasoo kale ma kugu dhacay oo iPhone-ku ogaa arrinkaasoo kale soo ku dhici karaa ama qof walba aan aqoonta ku ogaa islaha IT waxaas buu shaqo ku leeyahay marka dadka majority-gooda waxay ugu raadeen malaha Apple ID-ga lagula isticmaalayaa iska bedel Apple ID-ga lagula isticmaalayaa baa la yiri Apple ID-gan markaa bedelay shirkaddan Smartech baan tagay Apple ID-ga la soo bedelay Apple ID-ga markii la soo bedelay dhowr cisho kadib haddana Apple ID-ga la soo bedelay la soo sameeyay korta qoraalkii waan kula wadaagay صح ii soo qoray ayaa haddana la soo diray maxay ahaydey waa Apple ID-ga cusubna waan haynaa iyo qoraalkaas Apple ID-ga koleynu ognahay qofka iPhone isticmaala si fiican buu garanayaa Apple ID-ga hadda xaraf ah small aad ka dhigtid capital kuma gelayo ma gelayo sax Apple ID qof arkay oo ka maxay ahaydey aad uga fiirsaday ayuun baa heli kara okay waan soo gelaynaa taa way ku xigtaa marka waxaan doonayaa daawadayaasha iminka ku jira inaan u micneeyo qaabka dadka intooda badan way yaqaanaan 10 baan ka sameeyey oo sababtaan u sameeyeyna waxay markay dhibaatada ku dhacday hibaaq iyo dad badan waxaan dhihi karaa dad 100 ka badan ayaa la soo xiriiray
inta ugu badanna boqolkiiba 90 waxay igala soo xiriireen Somaliland igala soo xiriireen ay dumar u badan yihiin bay la soo xiriireen oo caddaynaan u hayo marka qaabka u kala shaqeeyo iPhone-ka Apple ID ugu shaqeeyo ee wuxuu yahay tusaale ahaan Apple ID haddii aad iska bedeshid Apple ID cusub aad samaysid qofkaas waa impossible in data adiga aad leedahay uu helo laakiin telefoonkaaga haddii spyware ama basaas software la geliyo sida aan mar dhow weydiin doono markii dambe ay bedeshay simka haddaad bedeshid waxba keeni maayo Apple ID haddaad bedeshid waxba keeni maayo waa telefoonka lagu jiraa markaa sida kaliya loogu badbaado waxay tahay ama format factory setting waxa la yiraahdo sidii warshada Apple-ka ee China ku talay ku soo saartay ama waxa la sameeyay in telefoonka qashinka lagu diray mid cusub soo qaato maxaa dhacay hibaaq markii aad Ethiopia tagtay ama sim Ethiopia aad gelisay aad istiri way ku dhamaatay marka cid kula soo xiriir doonta ma jirto kadib maxaa dhacay Ethiopia tagay waxaan iska soo samaystay sim card Ethiopiana WhatsApp-kan ku samaystay marka WhatsApp ku samaystay adigu waxaan isticmaalay muddo aan bil baahan wax yar markaan isticmaalay maalmaha ka mid ah waxaan tagnay Gabiley baan lagu casuumaan tagnay aniga iyo dad kale oo fanaaniina markaan saa u tagnay un baa maxay ahaydey waxay la soo xiriiray ina fanaanada rasmireys oo dhan asxaab isku dhawahay ay igu tiri saaxiib waxaad ii soo dirtay waxaad leedahay sax markuu soo dirino WhatsApp ma soo gelin baan ku yiri marka nambarka caadiga Hargeysa waqtiga joogtay ay iga soo wacday waxa ku ruguma soo dirina waaban eega khadkan furtay aan waxba uma dirin screenshot bay soo qaaday waxay waa nambarkaaga waaban is aragnay Hargeysaan imid waaba nambarkayga baa inta wax looga soo diray ana ma arkayo adoo wali Ethiopia haysta anoo sim card Ethiopia haysta haddana inan kala walaalanahay anagu aan walaalanahay oo Hargeysa joogtay Mareykanka ka timi baa haddana ayuun baan u sheegan ku yiri walaa waxaas bay haysta anagoo maalin meel ka wada qamsay igu tiri sawiradaada noocaas waxyaabaha noocaas amba waa la soo diray sodii aduu ii soo diray waxaan isleeyahay maxay kaaga soo dirtay markaas baan iska bedelay kiina WhatsApp dhan baan iska daayay gabiyaha waa joojisay waan joojiyay aakhirkii ilaa loo soo dhigtay kii aan businesskay meherada aan dadka macaamiisha kala hadli jiray ayuu qofkii kala soo xiriiray marka dadka asxaabtada la xiriiray iyo qaraabada qof walba la xiriiray Soomaa okay kastoo asxaabteeda waa loo diray waxaygaas baa loo diray inanta ma garanaysaa hayla soo hadasho maxay ahaydey inay la soo hadasho un baahanahay un baa la oranayay okay su'aasha daawadayaal ugu muhiimsan dagartu Ilaahay bay taqaanaa su'aasha ugu muhiimsan ee maamulka sare Smart Tech marka aan weydiinay markaanu sameynay baaritaanka sologroups.com waxay ahayd very simple anagu ma oran hibaaq waxay u tagtay Smart Tech xarunteeda ku taala Hargeysa dhowr branch ay leedahay mid kamid ah ay u tagtay oo wiilal Soomaali ah iyo kuwa Jaanib ay ka shaqeeyaan marka kulay maamulka sare xilliga Somaliland ma joogay dibadda ku maqnaayeen sidaan ku war helnay Apple ID ayaa loo sameeyay marka loo sameeyay Apple ID-gi meel baa lagu qoray oo loogu kaydiyay sida iyada inoo sheegi doonta iyadana ii sheegtay mar hore 3 maalmood baa ka soo wareegtay markaa iyadoo berbere joogto la yiri qoraalkiina anaaba soo dhigay Facebook waayo Apple ID-ga hadda ma isticmaasho oo la yiri waan kula socdaa meesha joogtid wili lahjadu xogaa waxay very strange lahjad koonfur bay ahayd oo laga dhigay ila lahjadu hadal qofkood garanaysa laakiin qoraal garan maysid oo la yiri after 3 days 3 maalmood kadib markay ka soo tagtay Smart Tech la yiri waan haynaa baa la yiri Apple ID-gaaga maanta berbera joogtid dadkaas la socotay waxaas arinta waqtigeed dhacaysa dareenkaaga muxuu ahaa hibaaq iyo maxaa dareentay marka xilliga walaalo horta walaa aad bay u dhibaato badan tahay ilaahay baa caalimul qayba oo wax walba ka warhaya laakiin marka qof binaadana ku daba galay halka markaas oo kaliya tana maaha markasta aan meherada joogo meheradaada wadiga ka baxay wadiga qofka la socda igu socotay oo waan iska xamilay laakiin maalintaas wallahi xoog baan uga xanuunsaday markuu qofkii igu yiri Apple ID-gaygii cusbaana uu ii soo diray maxay ahaydey haddana uu location-kan joogay iyo wax kastana uu haddana ila soo wadaagay aad baan wallahi uga xumaaday ii xanuunjisay laakiin qofka wuu ogaa xataa waxa laga yaabaa inaanu berbere joogin laakiin communication-kaaga iyo waxa social media soo gelisid wax walba uu ogaa soo lama dhihi karo way dhici kartaa marka waxaad ii sheegtaa imise social media account baa lagala wareegay intay arrimahan ku daba socdeen
horta markii ugu horeysay saan hore u sheegay waxaa laigala wareegay WhatsApp-ka waxaa ku xigay Facebooka Instagram-ka haye maxaa ku wixii ba saas ka wada haray runtii horta Cabdinaasir oo ma jecla anigu inaan markasta amba meel ka muuqdo social media aan dhex ororto oo waxaan ogahay kolley dadka qaar haddii maanta ay arrintani ku dhici lahayd inay markasta bulshada la wadaagi lahaayeen waxaan arkaya dad igula hibaaqay maxaad u qarsatay dadka ula soo wadaagi weyday anigu inaan social media dhex orordo waxa iiga wanaagsanayd waxaan idaba joogay iyo dhibaatada igu haya inaan ogaado mar walba waan iska aamusayuun oo aamuskan ku dadaalayay meeshan salaado waxba kaaga baxaya ama waxbaad ka helaysaa baan tegay anoo aamusanan dadka inta igu xeeran mooyaan cid kale la wadaagin marka waa markii WhatsApp laygala wareegay qof walba wuu la yaabi jiray hibaaq WhatsApp-kaagi maxaa ku dhacay waa WhatsApp-ka waa layga jabsaday qof kasta wuu yaabay waayo qof yiri WhatsApp baa laygala wareegay ma jiro qof walba wuxuu warinay WhatsApp ma lihid WhatsApp-ki maxaa kaaga dhacay WhatsApp-kuna kale waa aaladii dadku xoog uga wada xiriiraan imika waqti xaadirkan waana waxda qofka u bareefada marka haddana Facebook baa laygala wareegay waan iska day mid kasta waan ka haray Instagram-ka laygala wareegay waan iska day beri dambe samaystay maalmo dambe aan Facebook yara samaystay markaan taleefanka cusub iibsaday waan wixii kalena aan iska samaystay waan gartay horta arrintan anigu ma ogeyn 10 maalmood ka hor waxaa ila soo sheer garaysay ama ila qaybsay gabadhaad qaraabo tihiin oo nasro la yiraahdo oo aan asxaab nahay oo ku nool oo isaga qof aad u wanaagsan ah oo maaragtay ila soo sheer garaysay waan arkay arrimahan baaritaan dheerna aniga iyo qolo kale oo isla shaqeyna ku sameeyna waxyaalo badan baan soo ogaanay laakiin ma ahan inaad meel soo fadhiisatay oo cidna eed dushaad ka saartay waad u tagtay qoladan smartag waxaa tiri walaalayaal waa la dhibaateeyey waxaan doonayaa in arrintan aad wax igala qabataan waan ka xumahay hibaaq waa soo laabatay okay su-aashaan kuu soo celinaya marka ma aadan soo fadhiisan baraha bulshada waxaad u tagtay qoladan smartag waxaa tiri waa la dhibaateeyey meeshiina laga dhibaateeyey Apple ID-gii 3 maalmood ka hor ay samayseen maxay ahayd jawaabtii ku sheegay smartag iyo maamulkooda waxaan u tagay horta markaas maan la kulmin horta Cabdinaasir oo madaxda maan la kulmin ama dadka meesha ka mas'uuliyiinta inankii waqtigaas ii geliyay Apple ID-gan u tagay waan weydiiyay waxaan ku risay ku dhici kartaa wuxuu yiri kole meesha walaal kamay dhici jirin waxa iyaguna waa safety tolosay ku dhici kartaa anigii buu dib ii sii weydiiyay aniguna maadaama horta ma jecel dadka buuqa jecel ma yihiin waan iska aamusay aniguna qof waxaan ahaa wax tabanayay oo maxay ahayd dhibaato iska haysatay waxaan ku walaal dhibaatadaas ay haysatay saas taleefanka dhibtaas la igaga hayay hadana Apple ID-gina la soo diray maxaad ii qaban kartaa baan kursay waliba may horta wuxuu igu yiri qofka waxaan ku ruuxay waxaas baa jira wuxuu igu yiri link man u diraa numberka kuu soo diraya yani saad u ogaatay location-kiisa waxaan ku yiri ana qof kasta yiraahdo waxaan kugu qabanayaa kulay waan maxay ahayd waan ku dhawaanay ha walaal baan ku waliba wax kasta oo u baahan tahay diyaar baan ku lahay marka inanka jawaab dambe ma uu soo siin waan helay waan waayay waan u diray midna imu soo oran maalin labaad haddana taleefon kale ka hagaajinay inay walaalnay ugu hagaajinay oo iPhone ayaan is aragnay inankan meesha haysta waan u sheegay waxaan ku risay asaas ba dhacday oo talosay ku dhacday bas si simple oo baan isku dhaafnay ana lama sii doodin taxi bay taagna waan iska baxay maadaama ay ahayd dhibaatadan waxay daashaday oo wax igu cusub aan ahayn xoogga maan sii saaray waxaan arkay oo mar hore aan ku weydiiyey videoga adigoo ilmeynaya la soo geliyay baraha bulshada dad ay qaybsadeen oo maaragtay markii ugu horreysay aad dareenkaaga siduu ahaa hibaaq wallaahi aad baan uga xumaaday aadna way ii xanuunjisay laakiin wax kasta waxaan sirin ilaahay isku xirun baan siri waxaan maadaama adigana in badan uu qof waxyaabo noocaas kuugu hanjabeeyay qofkan mar walba isagu waxa uu muhiim u ahayd in asagu daba joogo ku daba faylo aniguna inuu bulshada la wadaaga baan ka doorbiday wixii uu iga hayo wuxuu doonaha sameeyo marka wallaahi si kasto kulli horta dhibaato badan baan dareemay culays badan baan dareemay oo hibaaqdeedii hore waan iska bedelay laakiin maxay ahayd ilaahay baan isku xidhaa alxamdulilah dhahun baan wax kasto kugu dhaco way qornayd waxba lagama qaban karo marka hadduu hal mar faafay okay daawadayaal saan idiin sheegay gabdho badan ayaa ila soo xiriiray xilliga oo xataa qaarkood screenshotkaan soo gelay qaarna
waan u sheegay ma soo gelin karaa ma yiraahdeen waan ka day gabar ka mid ah baa sawirka smart tag intay soo qaaday waxay tiri weli ingiriis waxaan filay gabadha qurba joog inay tahay laakiin hargeysay ku nooshahay oh my god bay ii soo qortay kas waxaa la soo gelay waa cousin waa ereye oo ay tiri meeshan telefoon baa laigu soo sameeyey telefoonkii laigu soo sameeyey waxaa dhacday bay tiri iyadaa tiri in dhowr maalmood ilaa isbuuc kadib in aan arkay bay tiri sawiro niman iyo naaga qaawan oo meelay ka yimaadeen aan garanaynin oo si qalada igu soo dhacay ayaan arkay bay tiri marka arrintaasna yaab bay la noqotay marka waxaa dhacday waxaan filayaa hibaaq qadka ayay ka maqan tahay anaa sii wadaya iyadana way soo laabanaysaa hibaaq gabdho badan baa ila soo xiriiray kolley arrintan umaadan samayn keliya in adiga maarata qofna aad ku maagtid qofna kuma aadan maagin adaa lagu soo maagay qofna la maagi maayo laakiin arrimahan keliya kuma dhicin marka dadku waxay soranayaan hibaaq keligeed maxay usoo hadashay waxay usoo hadashay kolley adigu qof caan ah baa tahay oo baraha bulshada ka sokow business women ah ka sokow fanaanad ah oo la yaqaano magacaaga haddii lagu qoro google ka soo baxaya mise oran kartaa dumar badan oo ku nool somaliland hargeysa magaalooyin kale in arrimahan oo kale ku dhaceen laakiin iska yara xishoodeen iska aamuseen oo is yidhaahdeen arrintan halka ku ekeeya oo laga yaabo xataa in blackmail lagu sameeyo oo sawiro iyo video laga hayo ma dhici kartaa isleeda cabdinaasir wallahi haa aad baan u aaminsanahay waayo intii arrintan aan soo bandhigay inta qof ee ila soo xiriiray tiriya cadad male inkastaanu meel ku kala yara duwanahay somaliland oo keliya maaha qaar qurbaha jooga xataa inama aniga ila soo xiriiray oo igu yiri arrintaasoo kale aan nagu dhacday ama na haysata ama hablo adigu dad badan wallahi way ila soo xiriireen kole waxaad adigu isticmaalaysid oo loo baahan yahay inay secret kuu ahaato inay qof bini aadana uu gacantiisa ku jiro aad bay u dhibaato badan tahay marka wallahi waxaan leeyahay kole adigana waan kaaga mahad celinayaa inaad bulshooyinka Soomaaliyeed la wadaagtay si ay iyagu si khaasa ugu samaysan karaan Apple ID hadday u baahdaan ayagoo cidna u daba fariisanin muhiimaduna waxa way kole aniga wixii dhacay way dhaceen wixii kale dhacay ka dambeeya ama ay dadkaasi sameeyaan kole waa wax qoran laakiin wax walba ka hortagay ku fiican yihiin absolutely marka arrintii dhaweyd markii dhaweyd ay sheegay waxay ahayd haddii spyware ku jiro haddii simkaaga clone lagu sameeyey ama Apple ID-ga la haysto sida kaliya badbaadaysid Apple ID cusub ama inaan format ka dhigtid telefoonka ama aad telefoon cusub soo iibsatid marka waxaa dhacday telefoonkii oo dhan ibaa qashinkay ku dartay mid cusub ay soo iibsatay wax walba ay furatay marka kadibna waxa uu yaabka badan ibaa qaad ii sheegtay waxay ahayd in qofkii obsessive-ka sii noqday oo asxaabtaadii fanaaniintii meheradaad leedahay meel walba uu la xiriiro uu yiraahdo hibaaq baan doonayaa haddaan waayo wax baan soo dhigayaa arrintaas bal ka waran markii uu ku heli kari waayo telefoonkaaga iyo ka war arrintaa waxa dhacday markii aan anigu wax oo dhan iska bedelay meel walba uu ka guuray Facebook cusub aan xataa furtay wuu igu soo dar Facebook la iga soo darsaday oo qofkaas dadkaas isticmaalayeen waan iska baloogaray mid kasta waxa ka dareemo waan baloogareynaya oo ilaha aniga si fiican ila hadal waxaas waan ka joojinayaa marka anagu uma baan joojinaynin marka waxa dhacday dhowr qof oo fanaaniintii oo dadkan wada shaqeynayna ayay la soo hadlay oo igu yiri waxaas baan loo soo diray wuxuu yiri waxyaabahaas baan faafinayaa haddii gabadhaasi si degdeg ah ila soo hadli weydo ama aad isiin weydaan meel aan kala hadlo aan qaado la socday taasna argagax weyn way Soomaaliya afaa xataa meeradayda ka shaqeynaya ayuu la hadlo la wadaagay waxyaabuhu hayay nambaradooda meel ka keenay ma garan karo marka arrinta telesom de odayaal baa loo xil saaray iyaga laga warsugayaa laakiin waxa dhacday aan la socono asbuuci la soo dhaafay maalintii Axadda haddana marka la balantay qof kale oo magaciisa aan sheegaynin oo asxaab aad isugu dhawaanahay adna aad isu taqaanaan oo Soomaaliland aad looga yaqaan iyo Soomaaliya dibadda laga yaqaano ayaa jira arrintan dhexgal oo runtii aadna u canaantay laakiin rajada waxaanu lahayn arrintan in si hoose loo dhameeyo oo adigii wixii caddayn baanu ag dhignay dadkii caddayn loo wada jeedaan ag dhignay ma doonayna caddaymaha qaarkood inaan baraha bulshada soo dhigno sababtoo ah cadowtooye smart tech aniga shakhsiyan ama hibaaq ay hayso ma jirto qalad unbaa laga galay waana I suppose dad fiican dadka iska leh wax dhibaato kalena u malaynmay dadka inay ugu talagaleen laakiin markii dambe xoogaa markii arrintii aanu joojinay barnaamijyadii waxay yidhaahdeen hibaaq dee arrin waxba kama qaban karno marka maxaa dareentay miyaad xanaaqday mise waxay sii dadkan way iska kaa ciyaarayaan
horta cabdinaasir walaal waad mahadsan tahay kolley bulshada mar walba inakay wari naga sugaya mar walba maxay yahay xaalad halkii maraysa inakay naga sugayeen waxa arkay dad badan ay soo qoraya hibaaq arrintii masaas baad ku dhaaftay ma waxbaa lagu dhiibayo dadana sharaftaadii halkaasaad ku dhaaftay marka anigu kolley saan u gubanaya cid u gubanaysaa ma jirto amba ay ii damqayaan waxaasi hadallada noocaasi ama dhibaatada la ii geystay waxaanan jecelahay cabdinaasirow inaan horta inaan dadka la wadaago cabdinaasir mar walba inuu yahay qof aniga i garab taagan wax walba uu idila soo wadaagina ay yihiin wax aniga xaggayga ka imid ama aan raalli ka ahay waan anigu raalli ka ahay ama anigu macluumaadan usoo gudbiyey ama wax lai geystay oon caddayn u hayo oo aan isaga la wadaagay mar kastana waxaan aaminsanahay dadkan amba ila hadlay amba isku hawlay inay ila hadlaan badankoodu inuu sabab u yahay inay ila hadlaan waayo hadalkiisii anugu markan maxay ahaday fuliyoga duubaya maan ka hadlin shirkadna si caadi ah umaan ataagin dhibaato say ugu dhacday unbaan sheegay isagaan laakiin si barafada faahfaahin u siiyey isna faahfaahintii dabagal buu sameeyey baaritaan buu sameeyey wax walba kasoo baxay kulley badankeeda wuu idila wadaagay wixii aanu markaa macquul ahayn laydila wadaagana oo de waxaan macquul ahaynba anigu balse waxaan jecelahay anigoon hadalka badinaynin inaan maxay ahaday sheego inaan mar walba aan wax cad cid kastoo aan haysto qof dhibanaa baan ahay qof walba aan tuhmo waxaan xaq u leeyahay inuu tuhunkayga wiiga si xalaala iga tuhun saaro anigoon wax kale ka doonin waxna ku xujeynayn okay qofkuna biniaadankaana markuu dhibaato lagu hayo waa inuu fahmaa halkay kaga socotay iyo cidda ku haysa laakiin haddaadan garanayn meel lagaaga socday sabab lagu dhibaataynayo way ka xanuun badan tahay mar kasta anigu waxaan jeclaa wax walba in hoos loo dhameeyo cidna aanan ama ganacsigeeda duulimaad ku noqon cidna aanan dhibaato u geysan anigana waxba aan leeyahay aanay dibadda iga iman ama waxaan diidayo dhibaya aan cidna maxay ahayday dee aanay cidina wadwadin waxaa jirtay shirkaddan smartech wax cad baan ku haystaa waxaanan jeclaa waa dad waaweyn aabayaashii bay la leeyihiin ragga meesha haysta ee leh waxaan jeclaa dee sidii inantoodii intay iisoo hor fadhiistaan inay qanciyaan oo ay maxay hayday wixii aniga aan ka cabanayo ay ila eegaan haddaan xaq ugu leeyahay igu yidhahdaan xaq baad noogu leedahay madax meel ka sarreyso la salaaxa ma jirto bini aadana kama weyne hibaaqay wixii way naga dhacena raali noqo xataa ee qofkan baana kugu sameeyey ee la xisaabtan ayaa aniga iga badan ama hibaaqay wixii xaq nooguma lihid oo sababtaasaad xaq noogu lahay meesha waan tagnay maxay ahayday dad baan iyagu weliba u igmadeen inayna dhex galaan baana dhex galay waan tagnay dad mas-uuliyiin aana dhex galay waan la hadlay waxaan ku yidhi walaalo abal ay dhigan idinkaa ii sameeyey maanta cabdinaasir waxaan labadeenu isla ognahay haddii qof saddex iyo ilaahay isla ognahay haddii qof saddexaad ogaado ama adaa sheegay ama anaa sheegay abal ay dhiga ayagu ii sameeyey in laysoo diro oo qof kale uu ila soo wadaago dee sababtooda anigu ayagan maxay ahaday ayagan khaladkii saaray waa talabaad abal ay dhiga waxay igu yidhahdeen inan baa kuu samaysay inantii uu yidhi way kuu samaysay mooyaane inan kale ii geliyey galabtii markaan tegey meeshii intaas oo shaqaalaaba meeshii jooga intaas oo shaqaali suu labadaas intay inan ii samaysay inan u helay ayay wada heli karaan maalintii markaan u tagnay wuxuu igu yidhi ninkii meesha lahaa intuu saa taleefonkiisa usoo qaaday hibaaqay abalay dhigaagu intaa ma yahay haabaan ku yidhi abalay dhigayga ma sagaa lahaa mise anaa lahaa inamada guriga ila degan dadka guriga ila degan waxay isticmaalaan iphone haddaan u baahanahay inaan cid wax aan la wadaago ayagaan la gashan lahaa lacag kumaan bixiyeen abalay inaan samaysto waayo waxaan u samaysanay wax gaara inaan yeesho ayaday sidaa tahay ay kii meesha lahaa wuu hayaa computerkoodii ayay ii fureen abalay dhigaygii baaswordkayga saas ugu qoran yahay cidina adduunkan isma aaminto aniguna waxaan ku tuhmayaa inay abalay dhigaygan ay maxay ahaydeen sababtaan u qabsanaya ama aan maxay ahaydeen doonayo inay dee ii gar dhigtaan oo aan de wada hadalno ama aan wax ku haysto waxa weeyaan abalay dhigayga anaa gaar u leh ayaguna way wada hayaan shaqaalaha dhan computerkaasa ka dhexeeya computerkii u dhex yaallaa kii meesha lahaa halkan buu ku hayaa inan baa ii samaysay inana maalintii wuu ii geliyay abalay dhigay baasweerka markan u tegay aan ku yidhi abalay dhigay ay sameeyeen ikraan baa ila socotay inaan saaxiibnay kolley bulshadu way garanaysaa
إيران شماق وإلا ستوان كور ولا أبل أي دقيقة محاول سيف كرين سي باسورد وحي يقول السيستم كان فوق لنا لعل هدو كارلو موكله أنا أمورا كديدة يا أيام بس كجتهي مركز أنا وحنا لي أبل أي دقيقة دان دونا ينعي لا استعمال شو لعق ما نكون بحياني أنا دت كان قولي لا شو قبل أي دقيقة أنت لا استعماله أنقشضه أنا وحي لا سود دقيقة إسكدين لهاد لكن أبل أي دقيقة أيوة كنت حيا هاي بوضع هيا waxa kaloo jirta قالي بها هيا أسقي بها هيا maxay heeday maalintii markaan wada hadalnay dadkii maxay heeday noo dhaxeeyay waxay yiraahdeen dawo arrinka waa saase inantan arrinkeedii waa saas bad khaladka ku yeelateen maxaa xala waxay rabaan isku noqodkii waxa weeyaan markaad maanta tirada Cabdinaasir oo baaritaan ma sameeyo isku noqonaynaa wixii aad soo heshay aniga inaad igula soo noqoto sax ma sax ama dadkii noo dhaxeeyay tirada arrintii baqsaasay noqotay isku keenkeena waan balansanayn waxay sameeyeen qof walba madaxa qof walba mas'uul aan isgaranaynay ayuun bay soo diray hibaaq arrinka ay nagu wado waxaan doonaynaa inay naga gabagabayso reason waa inaad ii keento hataa sababta iga gabagabay waxa waanu yeelanaa ama maanaan yeelan laakiin haddaad tiraahdo wixii oo sabab la'aan hibaaqay nooga gabagabay meheradayada darteed iyagu waxay ka hadlayaan duunyo meherada maanta magaceeda bedeli karaan laakiin tani waa sharaftaydi anigu sharaftaydi dadnimadeedan ka hadlay qof bana weligii ma bedelay inta ka dhimanayteeda ka noqonayso hibaaqayda sanhanaya wixii aan umada la hor imaadaan lahaanaya ayagoo meheradooda eegaya inay sharafteedii duudsiyaan xaq iguma laha wax cad baan ku haystaa abal ay dhigay way u saf gareeyeen waa la iga soo daba diray ayaga cidna ugama dhawa taleefankaygana waan u geynayay markastaan u geynayay taleefankaygana waxaan raacayaa markaan qof dhibanaay meel laga soo raacay aan garanin aan noqdo meel kastoon maalin istaagay ama qof kastoo taleefankayga gacanta ku dhigay walaalkayna ha noqday tixraac baan ku sameynaya aad marka waxay xaq igu lahaayeen inay yiraahdaan hibaaqay waxaagi saasaanu khalad ugu lahayn oo bari uga nahay ama saasaanu khaladkii ku yeelano walaal qof kama weynide dee qof kama weyni haddaan anigu qabsoomi waayo dad xariga baan leeyahay xarigii way qabta hibaaqay raalli ahow dee saasay wixii nooga dhaceen qofkaasaana geystay laakiin isagoo maanta shaqaalaha ii shaqeeya dee ma difaaci karo hadday khalad galaan ma difaaci karo aan dhalay baanan difaaci karin oo khaladkii ku difaaci karin ama aanan u dhaaran karin isagoo shaqaalihiisa difaacaya wuxuu la soo hor istaagay maalintii hore ninkii meesha lahaa mas'uuliyiinta malihin walaa ma samayn karno waayo say ku dhacday waa inaad ii sheegtaa inaad abal ay dhiigaygii layga soo daba diro iyo inaad adigu hayso oo shaqaalihii hayo oo inantii ii samaysay mooye inan kale wii geliyo oo kombiyuutarkii inuu abal ay dhiigay baaswirka saa u dhex yaalo hibaaqay aan kaa dhex galay waxaa kaloo jirta daawadayaasha saan idiin sheegnay cidna toos looma maagin waxyaabo badan baan baarnay technology inagoo isticmaalayna waxyaalo aan la wadaagi karin aan la wadaagi karin laakiin breakthrough waxa la yiraahdo wixii ugu muhiimsanaa waxaan helnay waxay ahayd qofka markuu wax samaynayo qalad buu sameeyaa somehow hibaaq waxa loo soo diray message ba loo soo diray message oo computer iyo telephone laga soo diray oo linka loo soo diray marka linka meeshu ka soo baxayana internet protocolka IP-gana waa leeyahay meeshuu soo maray protocolkana waa leeyahay marka caddayntaas ayaanu gacmaha ku haynaa iyo waxyaalo ka sii daran baan haynaa laakiin anigu waxaan idhi hibaaq xaalku wuxuu ku fiican yahay in dadkan si hoos loola hadlo dad ay dhex galaan iyagana businesskooda okay u ahaado ilaa markii dambe ay yidhaahdeen propagando xogaa iska cheap oo xataa aan u qalbin laga hadla yidhahdeen cabdinaasir especially markii hore cabdinaasir hibaaqa la yidhi cabdinaasir lacag buu doonayaa la yidhi anigu hibaaq iyada ima soo raadsan anaa raadsaday naaswaas u kaan xirtay I think xataa haddii la dhihi lahaa 1 milyan baan ku qaadanayaa hibaaq ayaa ka qiimo badan iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee baraha bulshada lagu dhibaateeyo oo mar walba arrimahooda aan ka hadlo marka hibaaq waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waad ogtahay waxyaabo badan aanan ka hadli karin baan kula sheer gareeyey oo aan kuu sheegay khaasatan masajidii laguu soo diray khaasatan Apple ID-ga telefoonkaaga waxa lagu sameeyey wax walba marka markii ugu dambeysay smart tech aad ka niyad jabtay oo ahayd bes ama sharci aan isla tegayna ama ummadda garsoore noo noqonay goormay ahayd waxay ahayd maalintan cabdinaasir oo saad ogtahay maalin waa nakii ballana ay waqti qabsadeen ay igu yidhahdeen waqti baan maxay ahaydey nasi axadda haynoo ahaato axaddii xaggan war uga sugayay dad bay iisoo wakiisheen waasaan kuu sheegay oo yidhahdeen hibaaq arrintaa naga gebagabayso riisan aan u gebagabeeyo na iimay sheegin weliba haddana dad kale ila soo hadlay yidhi hibaaq waqti kalena sii annagaa idi dhex gelayna dadkiina wax maxay ahaydey dee macquula ama aan anigu ku qanco lamay soo hor istaagin aniguna waxaan idhi walaal idinkuna wixii aad ii haysaan aan dhibaato idiin geystay
ama aan wax khalada aan idiila imin dee bulshada la hor kaalaya anna waan la hor imanayaay dee Soomaali maxamed ay noo garnaqaysa dee ama anaa khaladka yeelanaya bartaa maraya intaan madaxa mujaahid qaado dee ama idinkaa yeelanaya oo iga garbaxaya صح haddii waxa weeyaan wax cad ay la yimaadaan marka raaligelin baan wax siinayna cad haddii la yimaadaan anaa u diyaara meel kasta wax walba oo macquul oo ila yimaadaan oo igu yiraahdaan ibaaqay anaa jecel walaal in la qanciyo oo meel kasta oo aan maxay ahayd wax ku tuhmayo maxay ahayd la iga shaafiyo oo waxana ay iga gabagaboobaan aan dhibaatadan qofka igu haya meel ku ogaado ama aan helo laakiin hadda dadka aad iska dhex saartid oo adoon qofkii qancin bini'aadanka ay dhibanaha aad dadka qof kale aniga deeyma qancin karo ayaga wax ka tabanaya iyaga ay qancin kara ayagoon cidna xagan cidna aan iisoo wakiilan bay qancin karaan waxaan leeyahay gabagabeena aniga ii sheegi karaa oran kara hibaaqay sababta u gabagabeen iyadana arrinta ila bini'aadan baan walaal arrin kale ayaa jirta hibaaq oo dad badan ayaa soo weydiiyay haddana qaarkood halkan ku qoraya smart kaliya ka hadasheen waxay yiraahdeen telesom oo inanta fariin looga soo diray telefono kala duwan aan baraha bulshada aan soo dhignay maxaad uga hadli weyseen bilowgii barnaamijku waxaan ku bilownay odayaashii iyo maamulkii sare ee telesom ayaa ka cudur daartay waxay yiraahdeen arrintan baaritaan baan ku samaynaynaa hibaaq waan u yeeraynaa waxaan soo helaynaa waa loo yeera waa u tagtay Soomaa bal ii sheeg adii telesom waxay idin dhexmaray telesom walaahi waan u tagay anigii dad kale u tagnay maxay ahayd waxay yiraahdeen hibaaqay dee dhibaatada horta lagu geystay waan ka xunnahay dee meeshana telesomna kale dadku say og yihiin shaqaaleynta lagba ka shaqeeya baaritaan baan samaynaynaa naga warsug wixii aad xog heshidna noo soo gudbi marka ayaga weli waan ka warsugay inkastoon jecelahay wax walba walaal inay horey ku dhamaadaan oo maxay ahayd qofkaas horta ilaahay baa wax walba og ilaahay baana cid bini'aadan kastoo wax baaraya ama gacanta wax ku hay ilaah baa ka weyn horta laakiin aan jecelahay inay wax walba ay horey iga dhamaadaan aniga culays ugu hayaan horta culays kasta kugu hayaan waxaan kuu sheegay horta maalintii ugu horeysay aan ku arkay kumaan arkin inaad tahay qof jilicsan waxaan ku arkay qof adag oo hablo badan oo Soomaaliyeed ay ku daysan karaan waayo waad soo fadhiisatay dumarka qaarkii haddii lagu sameeyo intay guriga isku soo xidhan bay iska aamusi lahaayeen marka hadda horta albaab baad furtay laakiin waxyaabaha cajiibka waxay tahay arrintaa markay hawada soo gashay oo laga hadlay meel bal la soo geliyey telefoonkii waaga active-ka ahaa ma doonay telesom sheekada inaan sii galo ilaa odayaashu ay ka dhameeyaan telefoonkii active-ka ahaa hawada ayuu ka saaray marka hadduu alla yiraahdo waxaan kuu sheegayaa hadda intaana barnaamijka soo gelin ka hor ibaaq akhbaaraad fiican ayaan helay waxaan kuu sheegayaa ninkaas waxa sameeyey iyo nimanka la sameeyo dhan they on the run qaarkood waa la ogyahay waan la yaqaanaa waan la soo bandhigayaa I think xeer ilaaliyaan faraha laga saarayaa marka ilaan meesha sharci baa ka yaalla Soomaaliland xataa baasaboor adoo ma furan kartid wax walba marka waxaan rabaa hadda xilligan la joogo cid ku dhibaataynaysa bisha waan sheegnay bisha bilowgeedii maalintaad hadashay maalmihii ka dambeeyay aan isla hadalnay oo Apple ID-gii telefoonka cusbaa arrimihii dhan gebi ahaan waa kaa wada istaageen soo maa walaal way geystageen alxamdulillah wax dambe oo hadal haya iyo wax dambe oo dhibaato igu haya toona mana arkin okay arrintan laakiin smart tech halkan kuma dhammaanayso maxaa fariin halkan uga gudbinaysaa inagu og waxyaalo qaarkood oo aan sheegi karin adna ha sheegin oo galabta markaan kula hadlayay aad ii sheegtay oo ahaa in telefoon waxay ku soo dhaceen hana sheegin laakiin wax ka soo dhaca barnaamijkana waanu soo daynay oo waanu samaynay waad ujeedaa maxaad fariin weli albaab u furan yahay aad ku wada hadli kartaan oo aad leedihiin halaga garbaxo mise sharciga Somaliland baad aadaysaa waxa la yiraahdaa Cabdinaasir oo kaadi badana baa loo gogol badiyo horta waqti ku filan wala waan siiya anigoo dhibana ah oo jecel wax walba inay maxay ahayd iga dhamaado waxay gees kuleelka lagu jaray waxay inay maxay ahayd waqtigan soo gaaraan ma baan jeclay inaan kala baxno anagu hoos u wada hadalno wixii maxay ahayd macquul aan isku afkarano aan ku kala tagno waxaan leeyahay walaal dee qofka bini'aadanka hadduu business marka laga yimaado inay sharaftooda u tudhaan baa ka fiican oo maxay inan Soomaaliyeed baan ahay way dhali karaan waa rag waaweyn wax walba waxa ka muhiimsan ayagoo meeshoodana sharafteeda dhowranaya inay wixii baaritaan sax ah oo qofkii waad garanaysaa markuu baaritaan sax ah sameynayo iyo markuu istifaac ku jiro haddana maanta yiraahdo anoo khalad kale waan istifaacayaa oo afka hore aan ma sameyn la soo taagnaado laakiin ma sameyn inay sabab yeelato ama tirada sababtaas aan u sameyn ama aan u sameyn karin
mar walba waxaan leeyahay anigu waxaan diyaar u ahay walaalo intii aan idinla imi ama intii ana lagu dhaxgalay baan la taaganahay halkaygii baanan taaganahay dee idinku iyagu baan ka sugayaa maxay ahaydey wixii dee ay arrintaa waxay ku xallin lahaayeen sharci hadday noqotona diyaar baan ahay oo mar walba anaa dhibanaa hadday noqoto inay maanta yidhahdaan asxaab baan ku xallinaynaa oo aan diyaar baan balaayo intaa ka badan ba mana doonayso sheekada hadday hal mar yidhahdeen laakiin sababta caawa barnaamijkan aan u samaynay baa ah dadku inay su'aalaha igu soo badinayeen oo qaarkood ay laayeen hibaaq maxay ahaydey ma afkaa lagu buuxiyey arrintaadii mad ka hadhay wax kasta waxay igala qiimo weyn sharaftayda iyo sharafta hablahay ku dhici doonto ayaa iiga qaalisa cid lacag doonaysa ma jirto magdhowna anigu layma kufsane dee adeer waxaan u baahanay wixii dhibaatadan igu hayay waxaan kaloon u caddaynaynaa mar labaad cid lacag la siiye ma jirto cid lacag wax weydiisa ma jirto qofkii lacag cid u baahan oo doonaysa hadda kadibna ma jirto cid ma jirto ciddii lacag lasoo weydiiye ama doonayso baraha bulshada soo dhigto soo sheer garayso solar portal lasoo dhigto anaa u sheer garaynaya hibaaq qofkii qof lacag weydiiye marka isfariskuma wanaagsana gabadha laga soo garbaxo gabdhaha Soomaaliyeed libaatayna laga soo garbaxo waxa kale uu sheegayaa solar portal YouTube dad gashaan adigoo Somaliland jooga waad samaysan kartaa Apple ID cidna lacag hasiin cidna hay sameeyeen Apple ID-gaaga haddii qof aad ku aamintid waa adigoo dharkaaga iska bixiyay oo dad adoo qaawan maraya waxba ma dhaanto marka gabdhaha yar ku dhibaataynin hibaaqna aad u maacsan tahay in maaragtay ay soo fadhiisato baraha bulshada ay ka hadasho arrintan waayo inta badan lagama hadlo hibaaq waan ku mahad celinayaa 100% arrintan kulli wixii abdayda meesheedan soo gelinaya iyo meesheeda waxaan filayaa hadda wax walba inay tamaam ku yihiin security-gu ku adag yahay Facebook adkayso Instagram-kaaga adkayso weligaagana waxaad aaminsan tahay ha iska bedelin insha Allah garabkaagaan taaganahay waan ku taageerinaa sida gabdhaha kale Soomaaliyeed maalmo baan u taageerno oo baraha bulshada lagu dhibaateeyo aad iyo aad u mahadsan tahay dhammaan waxaan kaloon xasuusinayaa Smartech ragga iskale qaarkood waa isnaqaanaa aniga shakhsiyan wax aniga aan ka doonayo ama aan ku hajuumayo haba yaraatee ma jirto intaasay ganacsi wadeen saan sheegay ganacsi telecommunication weyn bay Puntland Somaliland Soomaaliya ka sameeyaan uma aysan furin Smartech in gabar Apple ID looga xado waxaana hubaala maamulka inaan ka warqabin dad ajaanib iyo Soomaali baa jooga in Apple ID lagu xareysto computer waa waali arrintaasna waa bad practice la sameeyey gabadhanna waxaa laga soo raacay Smartech waxaanu haynaa evidence oo linkyaanu haynaa IP address baan haynaa waxaan haynaa linkyo kala duwan telefoonaan haynaa waxyaalo badan aan haynaa oo haddii cadowtooyo iyo nacayb qof ay ku jirto oo aan dhihi lahaa aan soo bandhigno waxa laga yaabaa xataa hibaaq mararka qaarkood iyadoo xanaaqsan ay tahay Cabdinaasir waan soo dhigay anaa oranay hibaaqay iska daa is not worth it waayo in lagaa gardaran lagu dhibaateeyey maanta hibaaq waxba lagama hayo iyadoo qaawan lama hayo iyadoo sawir xun ku jirta lama hayo laakiin haddii la heli lahaa maanta heli lahaayeen qofka ma deyn lahayn laakiin isagaa is dhibaateeyey mar walba waan idhahdaa gabar Soomaaliyeed qofkii dhibaateeye hooyadiisu dhibaateeyey hibaaq mar kale aad iyo aad u mahadsan tahay insha Allah waan isla hadlaynaa nasrana waa aad iyo mahadsan tahay oo Stockholm ku sugan sida ay noo garab istaagtay insha Allah arrintan waxay dhamaanaysaa marka Telesom ay soo dhameeyaan Smartech ay soo dhameeyaan wixii ku xiga wabillahi tawfiiq aad iyo aad mahadsan tahay hibaaq adaa mudan walaal Cabdinaasir mar walba aadaan ku mahad celin waxaanan mar walba kaloon mahad celinay bulshada Soomaaliyeed oo aan mar kaliyaata hadal xun igaga soo noqonin oo hadal wanaagsan igu garab taagaadna aad iyo aad baad u mahadsantahay walaaltaankii adaa mudan walaal soo dhawaad waa mahadsantihiin dhammaan Solar Portal YouTube sida loo samaysto Solar Portal waxaa ku jira Apple ID adoo Somaliland Soomaaliya Puntland meesha doonid ka joogtid Soomaaliya ayaad ka samaysan kartaa Apple ID free ah telefoon ma baahnid credit card ma baahnid samayso weligaa intaa noo sheeg kan kula dhashay aabbaha iyo hooyada xataa ku aaminin Apple ID waa naftaada yar markaas ula socda wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu